afkaygu amaanta ufudu daaye afkayguna amaanta gacalo ufudu daaye bismillaahi raxmaani raxiim kulantu wacan oo wanaagsan dhageystayaasheena qiimaha iyo qadarinta loo meel walba joogtaan si walba noo daawanaysaan magacaygu waa bidhaamiye been masheege baarqa banaankiisa degay janalka daawanaysiin waa marqaati TV soo dhawaada waxaan idin hayaa akhbaar cusub oo ku saabsan xariga fanaanka Soomaaliyeed Qadar Ibraahim Qadar Keyow oo dhawaan lagu xiray dalka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa hadaba warar badan ayaa dadku isla dhaxmarayeen maxaa runa maxaa beena ayaan rabaa inaan mataqaana aan wax yar in kaga sheego xogta rasmiga hadaba marun baa in Qadar Ibraahim Qadar Keyow loo xiray basaboor been abuur ah oo uu kaga bixi rabay ama kaga duuli rabay eelaboor ku yaala caasimada Itoobiya Addis Ababa maxaa ku soo kordhay dadaaladii lagu soo deynayay Qadar Ibraahim Qadar Keyow oo lagu madalsanaa in uu maanta xoriyadiisii dib u helo fanaankeena Soomaaliyeed Qadar Keyow hadaba dhageystayaal waxaa jirtay ama daawadayaal warar baraha bulshada la isla dhaxmaray oo ah in Qadar Ibraahim Qadar Keyow oo shalay xoriyadiisii helay iyo in Qadar Keyow loo xiray basaboor oo qalad ah hadaba xogta ugu dambaysa idin haya waxay tahay Qadar Ibraahim Qadar Keyow sababta loo xiray waxay ahayd in Qadar Ibraahim Qadar Keyow lagu helay basaboor Itoobiyaan oo kaga bixi rabay dalka Itoobiya in basaboorkaasi uu ahaa basaboor Cabdulshideeya ama basaboor feega oo aan ahayn basaboor sax ah fanaanka waxaa la leeyahay wararka ugu dambaysa oo aan helayno basaboorka waxaa lagu sameeyay gudaha dalka Itoobiya guri ku yaala ayaa lagu sameeyay ayaa la yiri basaboorka Qadar Keyow waxaana laga qaatay lacag yar yar oo aan sidaas u badnayn laakiin waxa uu muctaad u ahaa basaboorkaasi uu doonayay si uu uga dhoofo Itoobiya Qadar Keyow markii basaboorka loo sameeyay safarkiisina uu isku dabaritay doonayay inuu ka baxo eelaboor ku yaala magaalada Addis Ababa ayaa garoonka eelaboorka Addis Ababa lagu qabtay waxaana waaxda immigration-ka ay weydiisay basaboorka oo wato markii basaboorkiisa la arkay waxaa la codsaday in fara laga qaado Qadar Ibraahim Qadar Keyow si loo xaqiijiyo basaboorkiisa inuu yahay basaboor saxan iyo basaboor isagu uu leeyahay maadaama aad u adag tahay kontaroolka eelaboorka magaalada Addis Ababa oo Itoobiya waxay ka mid tahay wadamada ugu mataqaana ugu baaritaanka badan marka laga baxayo garoomada qaaradan Afrika Qadar Keyow markii laga qaaday farii waxaa soo baxday in basaboorka oo wato uusan isagu lahayn basaboorkana aan wax fara laga qaadin basaboorkana uusan Qadar ka dalbanin dowladda Itoobiya iyo waaxdeeda socdaalka balse uu yahay basaboor feega oo gudaha Itoobiya gaaraan guri ku yaala Addis Ababa lagu sameeyay sidaa markay dhacday Qadar waxaa loo taxaabay xabsiga oo waxaa loo diray laamaha ammaanka inay baaritaan ay ku sameeyaan kadib waxaa ogaatay safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya iyo waliba Soomaalida ku dhaqan dalkaas Itoobiya waxay bilaabeen dadaalo fara badan oo la doonayo in fanaanka dib xoriyadiisa loogu soo celiyo laakiin way dhici weysay in muddo ayay isaga daba wareegeen waxayna ugu dambeyntii u qeyla dirsadeen dowladda dhexe ee Soomaaliya taasoo iyadana gashay dadaalo waxaa caasimada Itoobiya gaaray mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isagoo kaashanaya safaaradda Itoobiya ee Soomaaliya ku leedahay xaggaas waxayna guda galeen in fanaanka dib xoriyadiisii si loogu soo celi lahaa in ay ka galaan wada hadal iyo ka dowlad ahaanna ay soo deeyaan laakiin waxaa maanta lagu ballansanaa in fanaanka uu dib xoriyadiisii oo u helo laakiin waxaa dhacday arrin kale oo aysan filaynin dadkii maadaama maanta ay aad rajada ugu dhaweyd in Qadar Ibraahim Qadar Keyow dib u xoriyadiisa u helo laakiin waxaa dhacday in waaxda socdaalka dalka Itoobiya ay codsatay in
jaanis la siiyo maadaama ay baaritaano ay ku wadaan qadarkeeyow oo ay uga shakisan yihiin waxyaabo kale. waxay sheegtay waxaa socdaalka marka ay soo dhammayso baaritaanka ku aadan dhanka amniga maadaama basaboor macmala uu meesha lagu sameeyo falsificationa lagu qabtay waxay ka shakisay waxda immigrationka iyo laamaha amniga dalka Ethiopia waxay ka shakiyeen in uu ku lug lahaa karo arrimo kale laakiin fanaankeena Soomaaliyeed ayaa waxay cadeynaya inuusan wax arrimahaas kale lug uusan ku lahayn laakiin muhiimada kaliya ay dowladdu u qabsatay ay tahay baasaboorkaasi fega oo gudaha dalka Ethiopia lagu sameeyay laakiin waxa ay dadka ila hadlay sheegeen in rajada soo deynta qadar Ibrahim qadarkeeyo ay tahay mid aad u wanaagsan iminkana laga dul sugayo waxda socdaalka haddii arrimahaas ay sheegtay ay ku soo weyso waxa macquula in sida ugu dhaqsiyaha badan fanaankeena Soomaaliya qadar Ibrahim qadarkeeyo uu dib xorriyadiisa ugu heli doono. haddaba waxaan warbixintan yar ku soo koobaynaa xogtii yaraad ee aan ka helnay xariga fanaanka Soomaaliya qadar Ibrahim qadarkeeyo wararkii kale ee ku soo kordha xaaladiisa iyo hadduu xorriyadiisa helo iyo haddii ay waxyaabo kale soo baxaan waxaad kala socon doontaan janaalka Markhaati TV oo ah barnaamij had iyo jeer u taagan janaal u taagan siduu idinkugu soo gudbi lahaa warar iyo warbixino la xiriira waxa markaasi taagan iyo weliba fal walba oo la falgalayo dhacdada markaasi taagan ayaan idiin soo gudbi doonaa. halkaa daawanaysiin waa janaalka Markhaati TV ninkii la hadlayana waa Bidaamiye Been Masheega Baarqa banaankiisa degay. soo dhawaada like comment share wax walba subscribe waa inaad isugu dartaan janaalkan waa janaalkiina adeeryaal kiciya si aad u kacdeen. afkaygu amaanta u fududaayay afkayguna amaan